shirkani oo ay isugu yimaadeen maayirada uu ka shaqeeyo degmooyinkooda mashruuca maamul daadejinta ee GPLG gudoomiyaha gobolka Togdheer agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo gaadiidka oo hal maalin ka socday magaalada Burco ayaa maanta la soo gunaanaday maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad oo isaga marti loo ahaa ayaa ugu horeyntii kulankaasi ka jeediyay hadallo soo dhaweynaa soo dhawaada dhamaanteen meel kasta baan ka nimaadnay waxaan u shaqeynaa qaran isku bax وأنا وشقين يتالكيس النوع لبا يا أقونتيس هالك اللي قاعد لكن قفنا واحد بس كهجرن معي يا قرن اسكميدو اسكوبها بين وشقين قال لي برعو بروبلم بينو كقين لأن بريد ويد لما كانوا وحيلا دي فروق إلا أن معاذ الله سبحانه وتعالى ابن والد فما أيام لضع على دحين تنقطة بريد شدي أو هالس كتير بريتش ديرا بريتش ليرا 90% إنه دماغي دود maayirka degmada Boorama Salabaan Xasan Xaddi barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka Cumar Sayid ayaa iyaguna geestooda ka hadlay xiritaanka shirkani kaas oo ay ku tilmaameen mid muhiimad weyn u leh qaranka isla markaana waaya aragnimo iyo khibrad ay ku kala kororsanayeen mas'uuliyiintii ka soo qayb galay shirkaasi in shirkiisa 14aad maanta lagu qabto gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco aad iyo aad bay sharaf weyn loogu tahay waxaan idinku soo dhaweynaynaa marka hore magaalada Burco oo runtii magaaladiinii ah waa idinku soo dhaweynaynaa si kal iyo laabo waan idinku soo dhaweynaynaa aan isugu nimay magaalada Burco oo balantaydu ahayd markii hore inaan halkaas ugu nimaadno balantan qabsanay oo ahaa gudida farsamo ee maamul daadejinta oo 45 maalmood ba hal mar qabsooma si fiican buu noogu dhamaaday waan u mahadnaqaynaa reer Burco iyo mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo sida ay noo soo dhaweeyeen runtii maantana waxaan ku soo beegnay Burco maanta ugu qurux badnayd oo barwaaqo ah oo Ilaahay baan ku dhaartay aan soo dhanay ka dhixtig laakiin hawlo badan oo jira awgeed baan u noqonaynaa oo ka cudur daaranaynaa reer Burco shirkan wuxuu ahaa shirkii 14aad ee gudida farsamada ee mashruuca maamul daadejinta GPLG shirkuna sidii shirarkii horeba wuxuu ahaa shir runtii aad iyo aad muhiim u ah maxsuul fiican ka soo baxay waqti badan la wada qaatay ujeedada shirkuna waxa weeyaan in la kala faa'iideysto khibradda degmo walba adeega caafimaadka iyo waxbarashada iyo biyaha iyo wadooyinka iyo hawlaha kala birashadaba sida ay u qabtaan in degmooyinku ay experience sharing sameeyaan oo khibrad la kala faa'iideysto oo qolada kale waxay dhaantaa ay u gudbiso aad iyo aad baan Burco ugu mahadnaqaynaa shacbigeeda iyo madaxdeedaba Cabdiraxmaan Trike telefishinka Horyaal magaalada Burco